gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wixii injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ku qaabilay saxafiga Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo maanta xorriyadiisii dib u helay kadib muddo ku dhow sanad iyo dheeraad. Wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa sheegay inuu gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe ka qayb qaatay soo deyntiisa waxaana uga mahadnaqay gudoomiyaha gacanta uu ka geystay in xorriyadiisii uu dib u helo. waxaan ku soo booqday gurigiisa magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo aan la joogo waxa booqashadeedu waxay ku salaysan tahay inaan u mahad celiyo warka muxuu ahaa la sheegay oo muxuu ahaa soo gaaray waxa weeye gudoomiyuhu waxa weeye wuxuu ka mid yahay ragay ka qayb qaatay waxa weeye waa ragay madaxweynaha u tagay arrinkan cafiska maanta madaxweynuhu يعني محوها سببتي سان كسو baxay ayuu leeyahay runtii mahad celinta inaan u mahad celiyo muxuu gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo xiriir la lahaa yani ehelka xiriir la lahaa oo arrinkan muxuu ahaa muddo soo giraangirinayay maanta muxuu ahaa waxa weeye markii aan soo baxay runtii isaga fursad ismaan helin laakiin maanta waxa weeye ilaahay mahadi mar haddaan ku soo booqday gurigiisa nasiib wanaag maanta muxuu ahaa gudoomiyahana iselo oo intaan muuqaalkan muxuu ahaa bilaamina aan muxuu ahaa xoogaa wada sheekaysanana waxa weeye way dhacday intaas muxuu ahaa iga tahay gudoomiye jazakallahu khayr ilaahay khayr kugu abal mariyo dhanka kale gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna halkaasi ka hadlay ilaahay ma hadlay ilaahay subhanahu wa ta'ala xuriyadii ku siiyay ma hadlay marka kale waxaan mahadnaqaynaa waxa madaxweynaha oo in baad imaka ilaa 3 biloodba aanu arintaada ka wada hadlaynay inuu maanta ilaahay waafajiyay ayaanu mahadnaqaynaa laanu cadawga uu badan yahay waxa jira intaas oo kilib loo keenayo oo dadkan saxaafaduna waa dadku waa soo dabada soo haystaano dad badan oo cadawga saxaafadda isku wanaagsan baa jira marka wuxuu sameeyay mataqaanaa geesinimada dastuurku siinay dastuurka sheegay siinay madaxweynuhu inuu cafis leeyahay marka in saasan ugu jirnay dadaalka laakiin la qabanba in magaranaysaa Coldoon uu noqdo citizen wanaagsan oo dantiisa dalkiisa ka shaqeeya imka waxa weeyaan dhalinyartiina saatiin waxa leeyihiin mustaqbalkiina dalkiina ku xidhay laakiin ma dalkiina joogta tan inuu hagaajisana weeye maanta Soomaali shanta Soomaali meel maanta Soomaaliland ka nabadgeliyo wanaagsan walaal Djibouti waxa ka dhacaya xamar ma jirta Soomaaliya in teena adkaysana weeye yani hadda Soomaaliland wax ku noqon weydid de Soomaali wax ku noqon maysid dalka wax ku noqon karta eelkaaga joog Maxamed Jookar Hoon Cable TV Hargeysa.